labada agaasimo maanta xilka la kala wareegaya agaasimaha cusub ee wasaaradda beeraha ilaahay xilka weyn loo idmaday uu fududeeyo agaasimihii hore wasaaradda beeraha oo markii imika noqday markaa xildhibaankana in golaha sharci dejinta ee mushkiladda badan ka jirto kii markaa dejin lahayn noqdo lagu ducaynaysan insha Allah taala waxaan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo oo dhalinyarada runtii fursad badan siiyay isagii xisbigiisa kulmayaba oo arkaysan imika aniga yeelka casiyada agaasimaha kala farabadan dhalinyarada baa jira agaasimin kale ka hadlay iga horreeyay agaasimaha xildhibaanka noqdayna oo odayaashan bedelayno Siilaanyo nooga hiliyeen madaxweyne Siilaanyo nooga hiliyay marka dhalinyarada waxa looga baahay inay codkooda marka ugu hiliyaan madaxweynuhu xisbiga inooga tagay iyo musharaxa inooga tagay inuu hilna loo baahay maxamed aadan runtii waa dadkii hafayo ka asaasay 1999 markii waddanka lagu soo noqday intii jamhuuriyadda Soomaaliland jirtayba marna arrimaha samafalku ka shaqeynayay marna wuxuu ka shaqeynayay marka arrimaha dawladda iyo siyaasadda marka sida agaasimiga hore sheegay waxa weeyaan digreetadii shanaad ee madaxweyne Siilaanyo uu magacaabay ay maanta ku yimid wasaaradda beeraha waxaan raadinayaa markaa in kartidiisa iyo aqoontiisa in madaxweynuhu maalinba markaa wasaaradda ku bedelay waxaan rajaynayaa wakiilkan agaasimo waaxidkii ka hadlay lahaa halii baa naga tagay markaa halii kala idin imaan leh wasaaradda beeraha aad iyo aad baa u mahadsantahay. Assalaamu calaykum.